Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan ardayda Soomaaliyeed aad baan idin salaamaynaa. Maanta waxa aanu halkan idinku soo gudbin doonaa fursad aad u qaali ah oo uu ka faa'iideysan karo arday wal oo Soomaaliyeed. Fursaddaasi waxa weeye waa fursad uu ardaygu ku baran karo casharo amba koorsyo online qaab online ahaana oo free ah. Haddaba halka ayaa ka baranaya, sidee ayaa u baranaya ardaygaasi? ardaygu waxa uu ka baranaya website la yidhaahdo Coursera waa website ka mid ah website-yada adduunka ugu caansan, kuwaas oo bixiya casharo qaab online ahaan ah u bixiya oo aad free ahaan ku heli kartid koorsiyadaas. Haddaba waxaan u guda geli doonaa sidii aynu website-kaas account uga samaysan lahayn. Haddii aynu hore ugu lahayna aynu account-keeni geli lahayn si aynu u helno amba waxay uga ogaano sida koorsyo free ah looga helo isla website-kaas. Googlaha waxaynu ku qoraynaa Coursera, kadib waxa uu inoo soo saarayaa linkigaas. waxa weeyaan wkiisa saxdii waa www.coursera.org. kadib waa aynu kusii dhufanaynaa. kadib waxa uu inoo soo saaraya background-kan. halkaa 2 button ayaa inoo yaala. buttonka koobaad waa login, waa qofku haddii uu account ku lahaa isla website-kan login ayaa uu ku dhufanayaa. haddii aanu ku lahayna join for free ayaa uu ku dhufanaya oo ay la mid tahay mid account cusub samayso. waxaynu ku dhufanaynaa si aynu mid cusub u samaysano join for free. kadibna halkan waxa uu qofku gelinayaa magaciisa oo dhammaystiran. tusaale ahaan hadda waa mid tusaale ah, maxamed ayaynu samaynaynaa. halkan waxaynu ku sameynaynaa gmail aynu leenahay ayaynu ku sameynaynaa, waa mid tusaale ah. kadibna password ayaynu samaysanayaa aan hadhow ku galo account-kayga. kadibna waxaad odhanaysaa join for free. hadda wakaa waa inoo galay. background-kan ayaa uu kusoo saarayaa. waxaynu odhanaynaa skip baynu iska odhanaynaa. haddii aad doonaysa inaad buxbuxisid waad buxbuxin kartaa, haddii kalena waad iska dhaafi kartaa. hadda waxa aynu guda galnay account-keenii haddaba ayaynu gudihiisa ugu jirnaa. waxaynu tusaale ahaan halkan ayaynu ka searchin garaynaynaa waxa aynu doonayno in aynu barano. tusaale ahaan waxaynu odhanaynaa project management. kooraskii aad doonaysay inaad barato qaab online ahaan ah ayaad halkan ku searchin garaynaysaa. search ayaad odhanaysaa. kadibna intan ayaa uu inoo soo saaray. kaas ayaynu ku dhufanaynaa, waa tusaale ayaynu hadda ku jirnaa. kadibna waxa uu inoo soo saarayaa markaaynu ku dhufanay kooraskii pagekan. kadib waxa uu kusii dhufanayaa financial aid available ayuu kusii dhufanayaa ardaygu. kadibna waxa uu kusii dhufanayaa continue the application to the application. kadib waxa uu inoo soo saaray halkan pagekan. wuxuu ku yidhi waxaanu aada ugu faraxsanahay inaanu ku soo bandhigno ambaanu ku siino waxbarasho free ah oo koorsyo aad ku dhigan karto
kaasoo kaa saacidaya xirfadaha kala duwan inaad kor ugu qaado. Marka tigtan ayaad labadan saaraysaa. halkanna waxa aad gelinaysaa isla qoraalka xagga sare ku yaala sidiisa ayaad u gelinaysaa. waa inaad marka hore eegataa keebaa capital keebaa small letter ee kelmadda imika xarafka ugu horeeya waa capital, kadibna inta kale sidooda ayaad u gelinaysaa. kadibna continue ayaad odhanaysaa. sidoo kale pagekan ayuu inoo soo saaray markaynu continue niri. halkan background informationkaaga ayaad kaga sheekeynaysaa. halkee ayaad ka gaadhay waxbarashadaada. tusaale ahaan waxaan ka gaadhay master degree. annual income, halkan dakhligeenana waxaynu gelinaynaa 0 si ay inooga caawiso inaynu helno courska scholarshipkaynu codsanay. halkana employment statuska waxaad gelinaysaa haddii aad shaqaysid, haddii aad arday tahay, waxaad qabato ayaad ka dooranaysaa halkan. tusaalahaan waxaynu dooranaynaa unemployed, ma shaqeeyo. how much can you afford to pay, intee ayaad awooda inaad bixiso. 0 ayaynu halkan gelinaynaa. haddaba halkan waxa uu kusoo saarayaa 3 su-aalood oo kala duwan. halkan haddaba su-aasha koowaad sidan ayay u dhigan tahay. wuxuu ku yidhi why are you applying for financial aid, maxaad u apply garanaysaa, sababta aad u codsanayso waxbarasho bilaash ah taas uu website-ku kaa bixinayo amba kaa saacidayo inaad bilaash ku dhigatid. wuxuu ku yidhi marka aad ka jawaabaysid su-aashan waa inaad ku horeysaa ood kaga sheekaysa waxyaabahan. tell them about your background, waa in aad backgroundkaagii nololeed kaga sheekaysaa, haddii ay ka waxbarasho ahaato iyo haddii ka nololeed. waxaad ku horeynaysaa kaagii nololeed oo aad kaga sheekaynayso magacaaga, halka aad ku nooshay, halka aad kusoo barbaartay iyo waxyaabahaas. sidoo kale halkan qodobka labaad waxa uu ku leeyahay waalidkaa kaga sheekay haddii uu shaqo hayo iyo haddii aanu hayn. sidoo kale waxaad xustaa ood ka sheekaysaa dakhliga soo gala waalidkaaga. sidoo kale qodobkan saddexaad iyo current educational scenario and future reference wuxuu ku yidhi waa in aad waxbarashadaadii ka sheekaysaa, heerarkii aad ka gaadhay waxbarashada. sidoo kale your interest in the topic, xiisaynta aad xiisaynayso koorskan aad xaraynayso ayaad ka sheekaynaysaa. sidoo kale qodobka ugu dambeeya waxa uu ku leeyahay qorshaha aad koorskan ka leedahay in aad u barato waa maxay. su-aasha labaad wuxuu ku yidhi how will taking this course help you achieve your career goals, sidee ayaa uu kaaga caawin karaa koorskan haddii aad barato si aad u gaadho hadafyadaada. marka 3dan qodob ayaad awoodda saaraysaa si aad su-aasha uga jawaabtid. waa inaad tell them about your future and for pursuing this course. qodobka koowaad waa in aad u sheegtaa hadafka aad ka leedahay koorskan aad xaraysatay. sidoo kale waa in aad ku xustaa su-aasha marka aad ka jawaabaysid qoraalkaaga intee ileeg ayaad u tahay qof xiisaynaya oo u diyaarsan in uu koorskan qaato sidoo kale u barto. sidoo kale qodobkan ugu dambeeya wuxuu ku yidhi marka aad koorskan aad dhammaystirtid intee ileeg sidoo kale qaabkee ayaad bulshada ugu soo bandhigi kartaa koorskan aad baratay. su-aashan koowaad si aynu uga jawaabno waxa aynu soo qaadanay tusaalooyin arday hore oo ku guulaysatay koorasyada website-kan koorasyada uu bixiyo koorasyo ka mid ah qoraaladii uu kaga jawaabay amba jawaabihii uu ka bixiyay su-aashan. mid aynu soo qaadanay waxaynu kusoo gudbin doonaa videoga linkigiisa xagga hoose tusaalooyinkiisa. hadda waa kaa jawaabta ayuu ka bixiyey. wuxuu kaga sheekeynayaa ardayga magaciisa iyo halka uu ku nool yahay, sidoo kale familigiisa iyo dakhliga soo gala iyo howlahaas. sidoo kale
mustaqbalka waxa uu ka leeyahay ujeedada uu ka leeyahay course-kan inuu barto. Su-aasha labaadna waa hadafka uu ka leeyahay course-kan. isla waxaynu soo qaadaynaa jawaab oo ardaygaasi ka bixiyey isla su-aashan oo tusaale inoo ah. waxaynu soo koobiyeysanay sidoo kale kusoo bastigaraysanay jawaab uu ka bixiyey ardaygaas codsanayay koorasyada ay bixiso website-kan course ka mida. waynu hadda iska dhaafnay. ha ka warwarina jawaabahan. tusaalooyin ayaynu kusoo bandhigi doonaa videoga hoostiisa jawaabahan la mid ah. marka waynu iska dhaafi doonaa labadaas su-aalood. wuxuu ku yidhi will you consider using a low interest loan to pay for your courses. wuxuu ku yidhi miyaad tixgelinaysaa in aad markaad course-kan barato uu ku ahaado course-kaasi ama ood hadhow iska soo bixiso no baad odhanaysaa. haddii no ay tahay sababta waayo. marka waxaynu soo qaadanaynaa isla jawaab kale uu bixiyey ardaygii codsanayay iyadaas course ka mida. marka wuxuu ku yidhi I'm not a financial good. wuxuu ku yidhi marka dakhli ahaan laga sheekeynayo uma diyaarsanay mana ahi qof iska bixin karaa deymahaas. marka waalidkii ayaa wax tusaale usoo qaatay waxyaabaha ay qabtaan in ay yihiin beeroolayaal oo aan awoodeyn inay dakhli ayna iska bixiyaan. marka waxaynu odhanaynaa submit application. kadibna waxa aynu sameyneynaa kadib markii aynu submit nidhi waxa uu ku yidhi waxaynu helnay codsigaagii aada soo codsatay in waxbarasho course bilaash ah aad barato marka oo project management ah. we will let you know the outcome of your application. wuxuu ku yidhi waxaanu kusoo jawaabi doonaa ilaa bisha 2/7. marka ilaa bisha 2/7 ayaynu ka warhayn doonaa gmail-keena aynu ku samaysanay accountka si aynu u helno jawaab uu coursera inoo soo dirto. kaasina waxa uu ahaa habka looga xariisto website-ka coursera course bilaash ah si looga dhigto website-kaas. haddii aad ku guulaysato waxa uu kusoo saari doonaa sidoo kale emailkaaga kusoo dhici doona message sidan u qoran oo ah kuu sheegaya inaad ku guulaysatay financial aidka aad codsatay. marka kaasi waa tusaale kan halka idinku soo bandhiga tusaale idin noqonaya oo qofkani waxa uu xariistay tusaale ahaan kale finance for everyone. halka marka course-kii aad xariistay magaciisa ayuu kugu soo dhigaya. marka haddii aad course-ka doonaysid si gashidna go to the course baad odhanaysaa. waxaan idin rajaynaynaa guul insha allah mar walba.